قدا الشيء إلهي ناق كوما دشاني قدا الشيء والعياذ بالله وأي قدنتها السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كل تيون أكسن لما أنا خيرت قيمها إيجا مضن ملك استودونك أكجوك تاني يسوي والبا أو مقل إيه موقع إذا سو جاريو ولكن عبد الله مع الحسين وأكل السعوتان channel كان نرورة channel هذه ولا ليال ما أنت وحى إذين وذا أرن آد مالمهان براها بلشة أو قبصتي إسلام مركزنا قبل فربضن يرك فربضن بأد أوجا حناقين ولو قار كله أي تاجرين dadkaaba iska noocaasoo dadna fikirka way kugu taageerayaan dadna way kaaga soo horjeesanayaan gabadhii walaashan ahayd ee Esther Kurlibax iyo waliba Ibrahim oo aad ogaydeen 2020ka bilihii u dambeeyay in ay noqdeen lamaanaha qarniga isla markaasina ugu hadalaynta badan baa waxa dhacday in Esther Kurlibax dardaaran duca iyo habaar loo kala garan waayay waxa uu yahay ay Ibrahim dusha ka saarto ajiib inkastoo isaga laftirkiisu qaar ka mid ah habaarka uu iska diiday qaarna wuu aqbalay laakiin haddaba marka waxaan rabaa inta aanan bal muuqaalka u sii guda galin wixii taliyo tusaale waa isugu imaan doonaa bal Esther Kurlibax dardaaranka saygeeda ee kula dardaarmayso ila daawada إلهي ناق إيجا مكاتوسو naag ilaahay igama kaatuso haye isagiina marka wuxuu leeyahay آمين وصح ويدعسنيسا إن معناها وحير بتاعده إني معناها لمبر كذا دوقسته أو أنا لقيسه كلا دحقلين أو معناها وحواية أنا لكلا دنتالين بريها واحد صابح موقتها شياطين الحمر بصابح وعلى هذا أو دتك إسقامون نوع أو شقي إني كلا دران أو مهانة عد كلا بقى نوسو تاجنان أو رمو لبضي استعال إني كلا شقيان هذا مركي أي تري إلهي جذا الشيء ذا naag kuma tuso naag igama ka aragto iyo waxda habaar iyo duco wuxuu yahayba aan loo kala aqoon isaguna aamiinta uu gurayo baa waxay tiri marka aniga gadaashay naag ilma kuma dhasho tiibu diiday marka balil dhageyso قدا الشيء إلهي ناق كوما دشاني قدا الشيء هذا دي متقداش هو يدالي aad isagii marka taasoo diiday wuxuu leeyahay gadaashay naag ilma kuma dhasho aamintii waa diiday wuxuu tan aamin lama dhihi karo aad walaa waa lamaano fani ah oo runtii aan isleeyahay maasha Allah dad isku qanacsan oo isku faraxsan waay haddaba marka wariyaa idinku daaline markii ay tiri gadaashay naag ilma kuma dhasho ayuu tan diiday aamin inuu dhaho markaasay tiri oo waayo de wuxuu yiri waa dhiman kartaa maahano nafaaleeda haddaad dhimato lambarka dhuuqsale maa ileedu yiri aakhira isugu imaanayna maa ka wadaa warkaaga markaasay tiri maya waa yeele quud aan jirin aan loo qoriyo gurtaa maqli jirin mogtahay marka gabadhii oo nool weli aan dhiman oo tiri gadaashay naag ilma kuma dhasho aamin dheh ma dhahay aamin dheh haddaad dhimatidna ka war waa yeele ma yeelay oo quud aan jirin gabadhii way nooshahay macnaha waxa waaye laakiin waxaan u fahmay in ay shardi uga dhigayso oo macnaha qayb ka mid ah shuruudaha inay u buuxinayso si uu ninkan uusan meelba u fiirinba aad marka runtii marka arintaas waxay qabsatay baraha bulshada aad baa looga soo hadlay Soomaaliduna qayb bay ka yihiin ummadaha kale baa laga mid yahay wixii marka dhacay in laga falceliyo dadkaas baa laga mid yahay adduunka macnaha waxa weeyaan ku nool ee reactionada ama falcelinta sameeya haddaba marka aayadda anay isoo gaartay markay say u socotay aayadda markii la qaadanayo quraanka subciska loo fadhiyo aayada la qaado soma aayadda say u socotay marka anay isoo gaartay anigana haddaan qaadanaa marka dar li dambil Musa hal lagu diga marka aayadayda marka xoogaha waa idin dibdhiga baltayd intaan la gaarin falcelintii waa lagu kala aragti duwanaaday dad waxay yiraahdeen gabadhan wiilka macnaha waxa weeyaan habaar bay la daba socotaa oo way habaartamaysaa bari haday dhimato ninkan ma waxay rabtaa inay shuruud ka dhigato oo marka ay meel kaga qorto buug loo shaabadeeyo si uusan ninkan naag kale u guursanba haday xitaa dhimato naftan Ilaahay baa hayo xilligay go'aysana Ilaahay subhanahu wa ta'ala ku shaqale labadooda cid hor dhimanaysan Ilaahay subhanahu wa ta'ala naga og laakiin
naftu intay soo jirta lama yaqaan tan laftirkeeda waa taxadar kale dumarka qaarkood way ku taageereen oo waxay leeyihiin waa gabar dhaxda dhuuqsatay oo rabto ninkeeda in lambar 9 ay ku xirato si aanu u nuxnuuxsanba u dhaqdhaqaaqin macna lambar 9 ay ku xiratay khalaas waay cabdi ilayha waxa ka maqlay qolka 9 ha isku gargaraacin hada isku gargaraacdo wixii kaaga soo baxo adiga mas'uuliyadeeda qaad dad badan baa ku soo ceshanay qolka lambarka 9 la isku gargaraacin marka ayada lambar 9 ay ku xirtay dad baa marka waxay yiraahdeen gabadhan ninkeeda ilaashanaysa wayna ku saxan tahay in ninkeeda ay shuruudo badan ay ka saxiixdo dadna way kaga soo horjeesan waxa la yiri maya saas inay sameeyso ma ahayn hadaba taydan qaadana marka aniga aayadayda ayaan qaadanaya taadana waa ku daana horta lamaanuhu markay labada qofood isku faraxsan yihiin oo waxa weeyaan noloshoodu sida ay tahay ay ku qanacsan yihiin dabcan dadkaas dad markii aan eegnay oo aan fiirinay qanaaca ka muuqato oo labada qofood ba qanaaca ay ka muuqato qofku marka dadkuna labay kala yihiino dadna hadal bay u dhashaan dadna afgaabni bay u dhashaan qof waxaad arkaysaa caawa oo dhan raba in isaga la dhageysto soo u sheekeenayo caawa oo dhan wuxuu rabaa sidii wacdigii oo kale inuu ku sheekeeyo jaanis kuma siinaayo hadal markaad maagto saas intuu gacanta kula soo aado maartay wuu ku qabanaa bal sug fiir markaad maagto inaad hadasho oo kugu dhufana wuxuu ku leeyahay inuu sug kii hadlaba afku qabanaya caawa oo dhan wuxuu rabaa tiriro inuu ku dhaw ku sheekeeyo qofna waa qof iska aamusan oo afgaabnadan Ilaahay subxaanahu wa ta'ala u dhaliyay su'aashii la weydiin inuu ka jawaabo maahane aanan hadal badneen oo inuu sheekeeyo aan rabin dadku labada nooc ayay u kala baxaan dad baa marka waxay leeyihiin wiilka way afduub bay ku heesataa waxa weeyaan wiilkii way sixirtay wiilkii intay ka dhacday dad baa aaminsan oo afar ka saac la soo taagan war gabadhu waa gabar Soomaaliyeed wiilkana way ka muuqataa afgaabnidan inuu u dhashay waxa loo dhashaa jiro qofkii inuu afgaaban yahay iska aamusan yahay bulshaawi uusan ahayn bulshadu uusan waxba ku dardarsan laakiin gabadha xaaskiisa uu baari u yahay adiga marka gabaray ninkaaga ma waxa jeceshay inuu dhadhac badnaado oo meel walba uu hela dhaho iska dhax galo mise inuu noqdo qof mas'uul ah oo afgaaban oo laakiin adiga baari ku ah midka aad dooranayso anna waa ogahay adigana waad ogtahay Soma qof walba uu ogyahay qofka uu dooran lahaa gabar jecel maanta ma jirto nin dhacdhac badan oo sidii diqsiga camal meeshu rabo dalaq dhahay gabar jecel inaysan jirin qof walba waa dareensan yahay ilama lahan inay jirto haddaba marka wiilkan aniga markaan fiiriyay guud ahaan waxaan anigu aaminay inuu yahay nin isaga afgaabnida u dhashay oo iska afgaaban dadna aan ku dardarsan istira hore u sheegto waxay tii nin hadal badan anima barabiyo oo dookhayga ma bahaba laakiin marka aad fiiriso ayaga dhaxdooda familiyan marka fiiriso waxay ila muuqdaan dad qanaaca ay ka muuqato macnaha noloshooda ayagu ku faraxsan isku qanacsan noloshan ay wadaagayaan ku qanacsan inay yihiin maanta lamaane ku qanacsan dadka maanta loogu hadal haynta badan ay yihiin si ayaguba sheegeen markay magaalada marayaan liisqanjiroofanayo oo leeyakuya inta soo maray maadaama marka ayaga ay nooca isugu qanacsan yihiin inaga marka ka Soomaali ahaan maxaana looga baahan yahay ma waxaan looga baahan yahay inaan niraano way habaartay ma waxaan looga baahan yahay inaan dhahno way sixratay ma waxaan looga baahan yahay inaan dhahno afduub bay ku haysataa ma waxaan looga baahan yahay inaan dhahno way ka weynto uu ka cabsanaya ma waxaasana looga baahan yahay mise in aan u duceeno oo aan niraano ilaahay awlaad kale oo fara badan oo khayr qabta ilaahay oo kala si waa lamaane isku qanacsane ilaahay subxaanahu wa ta'ala qanaacadooda ha u dhameystiro farxadooda Allah u ziyaadiyo inaan niraano miyana looga baahan yahay labada arrimood marka tan looga baahan yahay waa midee walaalayaal waan yaabay saadan u fiiriyay haddana midda kale ila yaabka badan inta qofood ee muuqaalkaas luuqa inta igu soo direen dhahayo Esther iyo Ibrahim arag 1 iyo 2 ma ah ilaa 7 qofood bay gaarayaan luuqa igu soo diray soo xaqirtan ma marka walaalayaal lamaanuhu haday ayagu isku qanacsan yihiin erayada is yiraahdaan tusaale ahaan macnaha waxa weeyaan social media la fadhiyaa erayo wala isdhihi karaa wax weyn ma aha taas laakiin eraygan la isleeyahay talo ma yahay mid qalbiga jiro ma wax daacadaba mise wax labadan qofood ay ku kaftamayaan
وين اسويدينا تي اسمعنا ويدينا نول بابا يا وشي سميل بو كسو قاتو دغال وصعد واد سو marka lamaanaha Soomaaliyeed waxaan leenahay Ilaahay subhanahu wa ta'ala isku waariyo awlaad khayr qabto caafimaad qabto jismiyan iyo aqliyan Ilaahay subhanahu wa ta'ala hasiyo hana ugu deeqo istir waxa leeyahay istir kurli baaxay ina adeeray dardaaranka faraha badan ya wax badan inay ku halabaan ba laga yaabaa bal inta naga yareeyso isagana macnaha waxa waaye bal dooqiisa u daayo xujaha ooga dhigin inuu bulshada horteeda ku dhaarto ama habaar aad habaartamayso oo aamin yiraahdo adigana xujaha ooga dhigin biidinillaahi kariim qoyskiinana ha noqdo qoys isku waaro isku barakoobo ilaahay subhanahu wa ta'ala ha isku keen waari aadna u mahadsantihiin ma sha Allah qoyskiina isku qanacsanna kulay dad badan tusaale waa u tihiin oo macnaha waxa weyn dad baa waxay leeyihiin waa age way kala weeyeen waa inta age ku iska lambar wax weyn ma aha in gabadhu ay ka weynaato in wiilku ka weynaado wax weyn micna ma aha muhiimadu waxay tahay dhaqankiinu waa sidee muhiimadu waxay tahay ma is dhaqan kartaan muhiimadu waxay tahay ma yahay jacaylkiinu mid mira dhalaya muhiimada intaas ah ma aha in lambar la sheego oo maanta oo dhan la yiraahdo way ka weyn tahay way afduubatay xoog bay ku haysataa wax macnaa keenayso taana waxa idin leeyaysan idin niyad jabinina keep going horay u socda biidnillaahi alkariim aad baa u mahadsantihiin muuqaalku idinku dheereeyay intaanu kan lamid dib isugu soo laaban doono walaalkiin Cabdullaahi Macalin Xuseen waxaan idinkaga tagayaa nabadgelyo wassalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh